si fiican aan u xasuustaa anigii aabbo aan daamo waxaan ku wada dheelaynay deedka bannaanka guriga si kedis ahaana waxa u soo dhacay hoobiyo weyn oo guriga ku soo dhacay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كنا بالمها الدنيا أو نكسر قادنا موضوعية كلا قديسان وربحنا يوريسيو إنه ليه لأنه قيمها كلا قديسان بولشدة قاسة تندتك مجا ميزان ككون حل بولشدة الصومالي ده. تطبعات كان برنامج كنا وح مرتين نوجوه مجن ظاهر يوسف أو كنا ولا ضل كنا دلانيس كل واحد صدم سنة. مجن ظاهر يوسف وهو بدن كنا دلانيس كم تلي ترترنا عالمية أو دنك عيارها كبدا ميسكا ترترنا داس أو إن بدن أو كميدا أو كجوليستين. wuxuu sidoo kale magan ku guuleystay bilada dhowr ah oo dhanka isboortiga ah gaar ahaan ciyaarta kubadda miiska oo uu ku matalo waddanka Netherlands. dhanka waxbarashada waxa uu sidoo kale aad u daneeyaa arrimaha waxbarashada. magan daahir yuusuf waxa uu bartay maadada administrationka ama dhanka maamulka wuxuuna sidoo kale xiriir dhow u la leeyahay bulshada Soomaalida ee qurba joogta ah qaasatan kuwa ku nool waddanka Netherlands oo uu ka qayb galo ama si joogta ah uga mid yahay barnaamijyadooda iyo xafladahooda si uu bulshada Soomaalida uga sii dhex muuqdo. waxaana xusid mudan in magan daahir yuusuf uu aalaaba dhiirigeliyo dhallaanka ku nool waddanka Netherlands. caawana barnaamijka uu marti inoogu yahay isagoo ku sugan waddanka Netherlands. magan kusoo dhawo barnaamijka maalmaha dunida. farxadee noo tahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadanaysid. maxamed maasha allah waa dhowahay waana ku salaamay adiga iyo tiimkaagaba. waynu kaa qaadnay waanu ku faraxsanaa barnaamijka inaad ka mid tahay magan run ahaantiina ee daawadayaal fara badan fariimo iyo fikrada kala gedisan inoo soo qoreen mar allaaliya markay maqleen magan ayaanu waraysanaynaa qaar fariimo shakhsiya iyo su'aalo shakhsiya jecel inay ku weydiiyaan qaar doonaya fikrado iyo aragtiyo iyo dhiirigelin intaba inay kaa helaan. innaga laftirkeena bahda barnaamijka maalmaha dunida su'aalo badan baynu diyaarsanno oonu isleenahay maanta fursad baad magan ku haysatiine su'aalahaas weydiiya. waana sababta mawduuca aan ugu magac darnay daawadayaashan oon jecelnahay inay la socdaan ee ah maxaad kala socotaa taariikhda magan tahir. magan waan ku bilaabo waxaan jeclahay dib inaan u noqdo taariikh ahaan soo soconno ilaa guulihii iyo biladihii aad gaartay ilaa iminka haddii beedmo aynu gaarno si wax badan aynu ogaano. maan dib ugu laabto dalkii hooyo marka aynu akhrino warbixino kala gedisan oo lagaa qoro iyo waraysiyo kala gedisan oo caalamku ay kula yeesheen warbixinta caalamkuba ha u badnaatee. ka hor intaadan bilaabin ciyaaraha kubadda miiska aadan imaanno waddanka Netherlands waxaynu wax jecelnahay inaanu ka ogaano waxaa jirtay fariimaha iyo fikradaha iyo aragtiyada iyo baaritaanadaynu sameynay in dhaawac uu kaa soo gaaray hoobiye ama qarax markaa kugu qabsaday magaalada muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. sax way jirtaa waana xilligii 92 oo weliba waaga dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka jiray. si fiican aan u xasuustaa anigii aabbo aan daamo waxaan ku wada dheelaynay deedka bannaanka guriga si kedis ahaana waxa u soo dhacay hoobiyo weyn oo guriga ku soo dhacay. hoobiyahaasa gadaashay ku soo dhacay dhowr 100 meter 200 meter gadaashay marka firir yar ayaa dhawarka ii gaaray saasaana wiljarka u saarnay. waan gartay dhaawaca sidaas uu kaa soo gaaray aadna ka mid tahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyinkii dagaalada sokeeye ay saameeyeen ama dhibaataha u geystaan shakhsi ahaan qofkii ama dadkii ku xiriira ama ahladii iyo qaraabadii intaba waana ka xunnahay. waa nasiib darrada waddankii ka jirtayna hore uga jirtay. laakiin aan dib ugu soo laabto sawirro fara badan aan jeclaa daawadayaasha inaanu la wadaagno. halkudhigga ugu badana waxa weeyaan haddaan anigu awoodo inaan waxaan sameeyo qof walba wuu awoodaa inuu sameeyo. صح وايو waxaan aaminsanahay inuusan jirin ba wax la yiraahdo disable ama disability. waayo qofku bini aadanka ilaahay abuurtay wax walba wuu awoodaa hadduu isku dayo. marka taasaan ula jeedi halkudhigaaseeti haddaan aniga karo adinkuna waa kartaan ama waa awoodaa. waadna ogtahay halkudhiggaas inuu yahay mid dhiirigelina. waa yahay waad ka soo dhaawac wuxuu kugu gaaray dalka kadib waxaad soo aaday qurbaha waddamadaad soo martay iyo xaaladaadii caafimaad haddaad si guud u dulmartid ma waxaad timid waddamada dariska kadib ayaad qurbaha timid qaybahan kale Yurub. markii hore waxaan nimid Kenya oo weliba halkaas aan kaga jiray hospital Nairobi 5 bilood kadibna waxaan nimid anigii aabbo iyo abaayo Talyaanigana Holland ka soo galay.
waayahay waxaad timid waddanka Netherlands kaliya maaha inaad timid waxaad ku guuleysatay inaad ka mid noqoto sida iminka sawirka shaashada ka arkaysidba ciyaaryahanada waddanka Netherlands ku matalaya ciyaarta kubadda miiska waxaad ka mid ahayd kaliya maaha inaad ka mid ahayd ciyaaryahanada taariikh baad waddanka ka dhigtay ciyaarihii meelihii ugu sarreeya ka gaartay bilada dhowr oo kala gedisan baa lagu guddoonsiiyey dadaaladaas iyo weliba guulahaas muuqda ee la taaban kara aad soo hoysay وحقيقة إن عقبة الله كلنتي عقبتها الله كلنتي ما حكم ذها عقلبه فربنا وأيو سبورت سكسيدي سبا مركز ولي بالتوب سبورت عنا فتو واحد هذا معه واحد فربنا على كل مساء واحد صود حكي ليسا على اللغات أهين الدين أهين إسلامك كان ودن كلام الحياة ريسي والله دور أقل وضع لكم ماي وليبا مركان ودنك قصبا عن صوت قلي أو عن واقع العك فربنا عن هايسنين أو هذنا اللي عرّوا إن السوس عرفت تاسيتي واقع يقول البنات waayahay caqabadaha ka sokow dunida markaynu nimid qurbaha qofku markuu rabo inuu meel gaaro waxa uu la kulmaa caqabado la xiriira xagga diintiisa xagga dhaqankiisa xagga qof ahaan dhalashadu ka soo jeedo wadamada uu ka yimid haddii noqon arrimaha cunsurinimada waxyaabaha noocaas oo kale weli ma la kulantay dhibaatooyin iyo caqabada noocaas oo kale oo ka dhana ama la xiriira waxyaabo lagaga soo horjeeda diintaada dhaqankaaga midabkaaga waxyaabaha aad aaminsan tahay intaba ka mid ah ها وقصد تاسو وابد عذابه إنك استوى قفك يقحرن تهاي هدات جلعسن تهاي مركو ديسمورالات كنو كنيسا وايو عناقا داد مدو عنا هاي سومالي حداين هاي او إسلاما دقن كينا عدك آد بي نوغو عدك تهاي إنان سي إيجي عنو دحتونا او داد كلنا عناقا نوغو فهمان waan gartay xagga waxbarashada aad baad u danaysaa sawirkan wuxuu kamid yahay sawirradana soo jiita bahda barnaamijka maalmaha dunida waxaad joogtaa mid kamid ah goobaha waxbarashada ee waddanka Netherlands sidaynu qiyaasayno waxaad sameynaysaa dhalinyaradii baad tusaysaa dhiirigelinaya ardaydii ciyaartii aad ku caanbaxday ee guulaha fara badan aad ka keentay ee kubadda miiska sawirkan adoo inoo sharaxaya waa goormee goobtu soo waa xaggee goobtu waa high school oo dugsi sare ah magaalada aan deganahay oo dugsigaas ardaydaas aan dhiirigelinay oo runtii directorka oo dugsiga igu soo cusumay aan u sharaxay qofkaan ahay iyo dhiirigelin kadibna markaan cashirka dhameeyna aan ardaydii aan la ciyaaray xoogaa kubadda miiska waan gartay waxa lagugu tilmaamaa dad fara badan oo la hadalnay markaynu u sheegnay inaad barnaamijka marti ku tahay dareenka guud ee dadka Soomaalida ay ku garanaya iyo waliba kuwa ku nool waddanka Netherlands inay yihiin dad run ahaantii kugu faanaya qaarkood ay si dareen leh u muujiyeen inaad tahay qof zaciima qof aan isla weynin qof dadkiisa ku dhex jira qof ka duwan dad fara badan oo Soomaali oo caan ah oo bulshada iyo qoomiyadaha kale wadamada qurbaha inta tagay markay magac heleen dadkii ka go'ay marka adiga ahaan waa sidee xiriirka la leedahay Soomaalida xiriir aad u fiican maxamed runtii inkastoo aanan badanaa aanan arkin magaalada aan deganahay ama gobolka aan deganahay Soomaalida kuma badno haddana markaan arko shacabkeygii Soomaaliyeed aadaan ugu farxaan anaa salaanta kaga hormaro markaan jidka ku arko oo aan salaamaa maxaa yeelay anaba ii fiican tahay caafimaad ii tahay ku hadalka Soomaaliga aan ku hadlaayo iyo aragtida aan arkay dadkeygii hooyo waxaan dareemaa mar walba farxad iyo soo dhaweyn fiicanna waan ka helaa iyaga mar walba dadka Soomaalida ma jirtaa ama sheekooyin oo aad nala wadaagaysid oo ku saabsan sheekooyin aad la yaabtay ama ku soo jiitay oo in dhex maray adiga ama dad Soomaaliya ha hadda 3 wiil ka hor meelahaas mar aan magaalada aan maray centrumka magaalada aan deganahay waxaa dhacday oo aan laamiga goonay markaas baabuur weyn oo weliba kuwa oo baabuurada oo dukaamada dhararka u keena iyo waxa wadaay nin Soomaali ah jidkii dhan uu xiray wuu joojiyay baabuurkii
سوء سلامه أنا مركا أركي أكشنكي أرتا وقف فرحاني سوماليا وسلامة إسلام كان وحنكو إلي جدكي أتحرتي أنا أن أربين إن أصدق دباتو سو جيلو أما ومتست جناح مركز وحنكو إلي جدكي أنا أتحرتي بابور كهال كاسليك أنكو شكل مركز وحيري وحيجي وين جناح جد حريت تنوبة أركتي هذا كواركاي مركز تاسو كله مركان runtii professional aan ku noqday oo ilna iga imaatay waxaan dareemaa markaan inaad dadkaaga ku jecel yihiin waayahay waana qaar ka mid a fariimahayna soo gaaray ee kugu tilmaaman inay tahay nin Soomaalida ku dhex jira dadkiisa jecel la shaqeeya markay timaado goobaha yimaadaan barnaamijyada iyo xafladaha markii lagu casuumaan isla weynaan isla markiiba taga marka taasi waxay tusaale u tahay sida sheekada iminka noo sheegaysid aan dib ugu laabto xilliga ciyaaraha guula fara badan baa ka soo hoysay waddanka Netherlands iyo guud ahaan baqaaradda Yurub iyo caalamka intiisa kale markay timaado kubadda xagga miiska daawadayaasha in badan oo kamid ah sawirradana soo jiito waxaa kamid ah sawirka iminka ay arki karaan oo ku saabsan xagga tababar noocaha qaadan jirta markay timaado isku diyaarinta ciyaaraha kubadda miiska dhowr tababar oo kala duwan tababar jirka ah waayo kubadda miiska inaad yeelato waa reflection sport ah inaad guurato ma ahan waa inaad caato noqotaa calool aadan yeelanin aad fududaataa marka table tenniska ka sokow waxaan alaminta jirkana waan qaadan jiray mar walba ilaa iyo hadda waan wadaa inkastoo ay da naga daba timid balse dhowr alaminto kala duwan aan qaadan jiray waayahay marka jirdhiskaas iyo weliba markay timaado arrimaha jimicsiga ma waxay ahayd wax maalmo kooban ah iyo saacado kooban mise waxay ahayd wax mar walba looga baahan yahay tusaale ahaan qofkii doonaya caawa in uu noqdo ama ciyaaraba kubadda miiska sidaadoo kale aan waxba ka garanayn meeluu ka bilaabo aan garanayn marka aad u sawirtid waxyaabaha looga baahan yahay tababarada looga baahan yahay jimicsiga uu qaadanayo maalmaha uu tagayo adoo sharaxaad guud ka bixinaya waa sidee waxaa looga baahan yahay runtii full time inuu train gareeyo anigu waagaa 8 saacadood oo maalin walba aan train gareynayo maadaama shaqana way ii ahayd waagaa xilliga oo aan responsor lahaa mishaarna la siinay waaba shaqo full time oo kale in aad subaxdii galabtii marar qaarkoodna habeenkii aad aalmintayso si mar walba aad isu dheelitirnaato oo fit u noqoto alaminto badan runtii loogu baahan yahay qofka hadduu rabo top sport inuu hurdo cunto fiican cuno inuusan dhafrin inuu iska ama uusan wax qadaraad ah uusan isticmaalin waxyaalahaas dhan loogu baahan yahay waayahay xagga guulaha aad soo hoysay iyo abaalmarinada aad qaadatay oo qaar ka mid ah daawadayaasha iminka ay arki karaan waxaad ku guulaysata bilada dhowr ah waxaad ku guulaysata abaalmarino kala gadisan oo aad ka heshay bulshada Soomaalida iyo weliba qoomiyadaha kale kugula nool waddanka Netherlands waxaa lagugu martigeliyay barnaamijyo waaweyn oo marka abaalmarino aad ku heshay guud ahaan marka abaalmarinadaas la isbarbar dhigo ee kala gadisan ee aad heshay mideebaad ka xasuusan kartaa oo si gaar ah u dhihi kartaa abaalmarintaas si gaar ah ii taabatay abaalmarin runtii oo 2011kii magaalada weliba Leicester waddanka UK laga siiyey oo weliba soo abaabulay barnaamij ururka Soomaaliyeed waayo aniga waxaan jeclahay badanaa abaalmarinta ay ku siiyaan dadkaaga iyo abaalmarinta ay dadka kale ku siiyaan anigu mar walba waxa igu qiimo badan kuwa oo dadkayga siiyay marka waagaa waxaa jiray football tournament oo Europa oo dhan ah oo Soomaali ahaan abaabuleysana jaaliyad Soomaaliyeed halkaas ka dhisan iyo duqa magaalada maayarada halkaas joogtay Leicester oo runtii has ambassador ahaan abaalmarin la siiyay oo tusaale wanaagsan aan dadka qaarkood aan u ahay taas ay ugu weynayd waayahay markay timaado dhiirigelinta dhallaankaas ama caruurtaas ama dhalinyaradaas in badan oo ka mid ah jecel inay ciyaarihii kubadda miiska wax ka bartaan ama Soomaali ha noqdaan ama aysan Soomaali ahaanin qaar ka mid ah bahda barnaamijku waxay noo diyaarisay sawirro dhowr ah oo adigiyo u saxiixaya funaanadihii ugu tagaya goobahoodii ay ku ciyaarayeen
isla markaana barnaamijyo kala gedisan ay kaa sameeyeen warbaahinta caalamka warbaahinta waddanka Netherlands oo iyagu goobihii shaqada kuugu yimid sawirro dhowr aynu helnay wadooyinka iyo magaalada qaybaheeda kala gedisan oo dhalinyaradu ay markaa ama carruurtu ay kugu qabtaan kulamada aad la yeelatid dhammaan intaasoo idiloo dhiirigelinta noocaana marka ma mid toddobaadlaha ma mid bishiiha ma mid sanadkiiha ma mid ururo gaara aad kala shaqaysidba markay timaado in aad dhiirigelisid dhallaanka iyagu jecel inay noqdaan ama ciyaaraan ciyaaraha runtii marmar qaarkoodna way jiraan meelo oo laga soo xajimo oo dhalinyarada aan ku dhiirigelinayo marar qaarkood iskuulaad marar qaarkood clubyo sports ah iyo ka shakhsi ahaanteeda xataa waxaan jeclahay mar walba inaan dhalinyarada dhiirigeliyo oo weliba dhinaca positiveka oo wanaagsan oo ku dhiirigeliyo oo nafsad ahaantooda iyo mustaqbalkooda wanaagsan mustaqbal wanaagsan u helayaan iyo ka shakhsi ahaanba runtii aadaan u jeclahay inaan ummadda weliba gaar ahaan dhalinyarada mar walba aan dhiirigeliyo meel walba aan ku arko cad iyo madow iyo soomaali iyo muslim iyo gaal waliba kulli isugu wada jiraan waayahay aan usoo laabanno laba sawir oo ka mid sawirrada aanu jecelnahay daawadayaasha inaynu la wadaagno sawirradan adaa noo micnayn doona waxaan sidoo kale noo soo socda su'aalo dhowr oo la xiriira xagga fankii suugaanta waxaa noo soo socda sawirro kale oo la xiriira taariikh nololeedkaagii ayaynu jecelnahay inkastoo aan hal barnaamij lagu soo koobi karin laakiin inaan waxba cabaar qaybo kala gedisanayno ka fahamno sawirkan wuxuu ka mid yahay sawirrada aynu ka helnay waxaa u moodaa inaad nasanaysid waxaad u moodaa inaad ka fakaraysid meel waxaa laga yaabaa in hees jacayla kugu daaran tahay intaba ma garan karno adaa noo fasiraya horta waa runta sawirkan waxaa waa sawir oo dad professional ah oo gacanta igu sawirayeen balse wuxuu tarjumaa xataa qof fikiraayo marka fikirkuna wuxuu noqon karaa waxyaalo fara badan badanaa fikirkaas anigu mar walba marka momentkaas waxay ahayd jacaylka of course oo bini'aadanka ka wada dhexeeyo dalkaaga dadkaaga inkastoo dhinaca kalena ay dadkii igu sawirayeen gacan igu sawirayeen weliba sawirkaas goordhow soo bixi doonaa jawi noocaas u ahaa waayahay maadaama dad artistayaal oo ama farshaxankii ku wanaagsan ay ku fakareen in lagu sawiro adigiyo jacayl matalaya ama u eg qof jacayl iyo maskaxdiisu matal macnaheedu ma aha in ay ilowsan yihiin ama aysan garan waayin waxyaabo kaloo la xiriira noloshaada waxay rabaan inay ogaadaan dhinacyo kaloo noloshaada marka annagan haddaa sidaas si lamida u ogaano sidee isku tihiin jacaylka waa isku fiicannahay aniga iyo jacayl ma kala dheernahay waa isku fiicannahay waayo waxaan aaminsanahay jacaylku inuu yahay nolosha nolol jacayl jirinna nolol ma aha runtii waxaan jeclahay bini'aadamku inay isjeclaadaan ummadda inay midoowaan isku jeclaadaan xag allah isku jeclaadaan jacaylkooda dhexeeyo dalkoodu ay jecel yihiin isku jeclaadaan walaaltinimadii isku jeclaadaan jacaylkii kale oo ninkii naagta marka jacaylka aniga wuxuu ii yahay basis oo nolosha aan ku bilaabay oo aan ku socdo aad isugu fiicannahay jacaylka marka ma dhegaysataa heesaha jacaylka soomaalida haddii aad dhegaysatidse heesahaas badanaa fanaaniintee ayaad aad ugu xiran tahay markay timaado xagga fankii suugaanta soomaalida aniga badanaa waxaan jeclahay fanaaniintii hore oo jubba uga horeeyo basto xabiib sharaabi xasan aadan samatar fanaaniintii hore durdur iftin kooxdii durdur iftin sahradabo waayo heesahaas markaan dhegaysanayo mar walba waxay soo xasuusiyaan xilligii berisamaadkii ee dalkeena hooyo marka waxaana jeclahay mar walbo inaan anigu aan ku mashquulo xasuusta wanaagsan ee dalkeena soo maray aniga gaar ahaan isoo maray asxaabteeda aan la soo qaatay badanaa taasaa wadhan focuska saaraa waayahay fanaaniin dhowraha sheegtay iyo weliba kooxihii fanka magaca kale ku dhex lahaa bahda iyo fanka suugaanta soomaaliyeed haddaan si kale u dhigo heesaha dhegaysatay mid ka mid a ma noogu dhufan kartaa dahab iyo lul
مناك صديقي تبقي رحمن دوري واي عصار العمر كده سياسة الهواء marka heestaas anoo ka duulaya waxaa jirta sawir bahda barnaamijka ay aragtay daqiiqada ka hor intii barnaamijku socdana aanu tusnay tusaale ahaan sawirkan waxaad joogtaa goob qurux badan biyihii iyo dhulkii doogga ahaa cagaarka ahaa meelaad fadhisid haddaanan qaldanin heesaha nuucaan heesaha iminka qaadaysa iyo heesaha kale heesihii hore ah xiliyadan ayaa dhegaysataan filaya xiliyadan waxaan dhegaystaa fanaaniinta cusub xataa sax heesahooda waa dhegaystaa waxaan jeclahay laakiinse fanaaniinta hadda oo inkastoo aan magacyadooda kulli aan amar wada sheegi karin hadda tusaale fanaan waxaa jira oo haaruun la dhaho haaruun oo maraykanka ku nool dalmaryare waa jeclahay waxaan kaloo jeclahay way badan yihiin fanaaniinta weliba anigu waxaan aad usii jeclahay fanaaniinta qaada heesaha ummadda dhiirigelinaya oo xag jecel hadday noqoto iyo xag wadaninimo dalkii ah fanaaniintaas aniga aad ii soo jiito oo aan jeclahay fanaanku iyo cayaaryahanku waa in ay waxaan aaminsanahay role model ay u noqdaan shacabkoodii weliba waxaan jeclaan lahaa oo aan ka codsanaa fanaaniinta Soomaaliyeed in wiigii hal mar in ay heesooda markay soo saaraan ay kaliya ay YouTube ku soo tuuraan oo iska aamusaan kaliya taas intay suubin lahayn waxaan kasii jeclaan lahayn wax dheerina ay ku sii daraan ay soo fadhiistaan social media oo fankoodii Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ay ku mideeyaan ay u horseedaan mideynta ummadda isku keenaan waxaad moodaa maxamedow baryahan dambe dadkii ama shacabkii Soomaaliyeed badankooda in ay social media ay ku isticmaalaan qaab aysan fiicneen qof waliba oo view ku raadinaya iyo like iyo shares wax uu sheegaa marka si dad badan ay u dhageystaan marka taas anigu aad aan u dhibsadaa markaan arko Soomaaliyeed shacabkeyga aan jeclahay oo isu haysta social media ay siyaasadii hadday naqaleed iyo sidii kalaba waayahay qodobkaas waa qodob ka mid ah qodobada barnaamijyo badan aynu kaga hadalnay in ay jiraan dad fara badan oo warbaahinta qaasatan baraha bulshada u isticmaala in ay dadku aflagaadeeyaan ama ha noqoto qabaa'il dhan ba arkaysaa qof aflagaadeynaya waxaa arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliyeed qof aflagaadeynaya shakhsiyaad magac ama sharaf bulshadii ku dhaxlay dad usoo tafaxaytay ama dhar usoo gashtay inay qofka caayaan oo aflagaadeeyaan ulajeedadana qayb ka mid ah sheegto ay tahay inay intaa ku doonayaan kaliya in la yiraahdo channelkaas ha la booqdo ama barnaamijka halkaas ha laga daawado oo ah maaragtay waxyaabo run ahaantii qofka laftirkiisa sidaa sameynaya sumcad ahaantiisa aan u wanaagsaneyn dareen ahaan marka maxaa dareentaa ama aad jeclaan lahayd fariin ahaan inaad la wadaagto dadka waxyaabaha caadaystay ee aadka saamaynta ugu leh bulshada kala qoqobaya ama kala geynaya waxaan dhihi lahaa in ay sumcad ayaga ahaan aysan u lahayn sharafna aysan u lahayn in mar waliba dadkaaga oo aad kala qaybiso ay macnaha sumcad daro ay asagana dadka ay u tahay iyo dadkiisaba waayo adduunku maanta wadamada kale social media waxay u isticmaalaan qaab positive ah oo ummadda isu keenaya wax taraya dalkooda iyo dadkooda wax u taraya marka annaga dadkaas inta waxaan dhihi lahaa ka fiiriya dhinaca wanaagga waayo carruurta aad dhasheenba ama aad dhali doontaanba inaad u noqotaan tusaale fiican ayaa fiican
way dhankaas waa dhanka baraha bulshada sidoo kale haddaynu fiirino sawirkan wuxuu ka mid yahay sawirro dhowr ah oo aynu aragnay muxuu ahaa muuqaalo filimo dokumentariyo adiga lagaa sameeyey intiiba iskugu dhex jira warbaahinta xiriirka la leedahay tan soomaalida iyo tan dibadda inteeda kalaba oo in badan oo ka mid a isku day inay sheekadaada la wadaagaan marka muuqaalada noocaas aad samaynaysid warbixinada noocaas aad samaynaysid fariimaha aad u gudbisid dadka kale ajaanibta aad og tahay muuqaaladaas inay daawanayaan ama filimada lagaa sameeyo maxaa badanaa isku daydaa oo fariina inaad la wadaagtid dadka aan ahayn soomaalida ajaanibta waxaan isku dayaa badanaa inaan tuso ama ay arkaan inuu jiro shacab Soomaaliyeed oo wanaagsan waayo waxaan aaminsanahay qof waliba oo Soomaali inuu yahay role model ama ambassador waayo maxamed haddii qofku oo ajaanibta ay ku arkaan inaad dhaqan fiican tahay inaad ayaga tixgelinaysid oo wanaaguna ay ka arkaan waxay jeclaanayaan xataa dadkaagii ama meesha aad kasoo jeedid marka mar walba waxaan isku dayaa inaan si wanaagsan aan ula dhaqmo hadday naqleed shaqadii hadday naqleed sportskii hadday naqleed dadkan oo magaalada isla deganahay dariska wadanahay oo dhan heer xataa markaan aniga vacation aadayo dariskayga labada dhinacba waa iga ajaanib hollandeyska u badan yihiin xataa qaarkooda beerteeda yar waa markaan vacation aadayo ayaga ii warwaraabiyo iga taxdiro macnaha waxaan tusi wanaag fiican iyo daris wanaag fiican way anoo markaa isleeyahay hadday dadkan ay ku jeclaadaan ama ay hadhowta waxay isleeyihiin Soomaalidu waa dad fiican waayahay waxaan jeclaa bal markaana inaan dib kuugu celiyo maadaama barnaamijkeenu kasoo bilownay safarkaagii dalkii hooyo iyo dhaawacii kusoo gaaray intaba in badan oo ka mid a dadka dhaawacyada ay gaaraan sidaadoo kale amase ku nool gudihii dalka in badan oo ka mid ah heesta waxay ku nool yihiin fursado aad u adag nolol aad u adag waxay ku nool yihiin nolol aad u adag waxay wajahaan nolol aad u adag tusaale ahaan fariimahana soo gaaray oon jecelnahay inaan kula wadaagno daawadayaasheena weydiiyan waxaa ka mid ah magan muxuu ka qaban lahaa tusaale ahaan haddii dalkii uu tago mise u qorshaysan tahay inuu dalkii tago haddii uu tagana muxuu ka qaban lahaa dadka wheelchairiska amase dhibaatooyinka dhaawacyada noocaas oo kale ay soo gaareen in badan oo ka mid ah hoteelada magaalada ku yaala ama guryaha dhismayaashooda sida loo dhiso aan fursad u haysan in wheelchairki amase kursiga ay markaa ku soconayeen uu galo dhismaha qofka injineerka uusan ugu talagelin dhibaatooyinka kale ay dadku wajahayaan qorshahaas iyo weliba aragtiyadaas daawadayaasha in badan oo ka mid ah dadka ku taageera ay jecel yihiin inay ku weydiiyaan maxaad ka oran lahayd wallaahi horta محمد horta marka hore waa jeclahay waana qorsheynayaa inaan Soomaali tago dalkayga tago weli maana tagin sidii aan ugu soo baxay waxaan dhihi lahaa badanaa dawladda ama wasaaradaha ku shaqo leh arrimahaas oo dhan in jeclaan lahaa inay shaqadooda si fiican ay u qabsadaan waayo dadkii way iska dhibaataysan yihiin xataa wheelchair fiican ma haystaan meelo ma tagi karaan sidaad sheegtay macnaha hoteeladii sidaas uma gali karaan iyo dukaamankii iyo meel walba runtii dawladda weliba anigu mar walba waxaan dhaliilaa dawladda ama iyo wasaaradda ku shaqo leh arrimahaas oo ay shaqadooda qaban haddana ka aniga magan ahaan nin maanta awood fara badan leh ma ihi ama lacag aad u fara badan oo ummadda dhan ku wada caawin karo ma ihi inkastoo aan jeclahay inaan wax caawiyo intii karaankayga ah labadii qof iyo saddexdii qof aan caawin karo waan caawiyaa balse waxaan jeclaan lahaa in wasaaradaha ku shuqul leh arrimahaas naafada in ay shaqadooda si fiican ay u qabsadaan waayahay qaarada Afrika anaga ka bulsho Soomaali ahaanna Maxamed waa inaan iska daynaa xataa dhaqanka ah tusaalo markii wasiir la doorto ama prime minister la doorto ama madaxweyne la doorto asagoosan shaqo qabanba loo sactumaayo loo xafladeynayo oo macnaha laga dhigayo nin fiican oo wax wanaagsan qabtay
halkan Europeanka marka adiga xil lagu magacaabo saas lagu fiirnaa marka aad shaqadaada si fiican ugu soo baxday kadib alba xaflado lagu soo binaa lagu amaana ama lagu amliyana anaga bil cagsi anahay qofkii oo shaqo qaban bel isla markaa la doortay markaas la amaan cirkaas la geeyaa marka shakhsigii pressure ma saarno ama wasiirkii ama prime minister ama madaxweynihii pressure ma saarno waa dadkii ay ku jecel waxay isku binaayeen qalad sax marka dhaqankaas in la bedelo fiicnaan lahayd qofka markii la doorto in loo xafladeyn ilaa ummadii u shaqeynaa in ummadii markuu si fiican shaqadiisa ugu soo baxo ama shaqadeeda kadib oo howlgoob ay noqoto markaas in oo loo xafladeeyo oo la amaano way mudan yihiin laakiin ma ahan marka hore waaya aan u soo laabto maadaama qaaradda afrika aynu joogno waxaa laga yaabaa tartanno kala gedisan oo qaaradda afrika amase ciyaaryahanadii afrika inaad kulanteen markay timaado ciyaaraha kubadda miiska maxaa kuugu yaab badnaa adiga la kulantay wallahi waxa ugu yaab badnaa markaan international tournament aan dheeli jirnay waxaan arki jiray ciyaartooyda weliba afrikaanta in ay haysan facility wanaagsan wheelchair hadday noqoto dhar hadday noqoto kaba hadday noqoto iyo qalabkii table tenniska lagu ciyaaray hadday noqoto aniga marka anaga bixi jirnay mar walba waxaana la sii jiray shan oo isku joog ah dhar train oo dadka lagu almiiteynayay qalabadii lagu dheelayay wax oo dhan farahay ku badnaayeen markaas inta aniga badanaa wixii dhanba waxaan sii jiray ciyaartooydii kale aan si hoose u sii jiray oo markaan soo noqdo aniga iyo hal fanaan wata iyo hal gaab iyo hal tuuto un hotelkan ku dhaqan jiray wallahi mar qaarkood hiitarka aan wari jiray si oo maalinta kale haddana ugu sii ciyaaro markaan soo noqono caqabad fara badan baa la kulmi jiray iyo eedeyn badan oo xiriirka kubadda miiska ee Holland waayo qalabkii la siiyeyba waa sii gudbiyay aniga marka aniga waa dareemaa ciyaartooyda kale ee afrikaanka nolosha ay ku nool yihiin iyo macnaha waa ka danqanaa ilaa ana nin afrikaan madow ah laakiin caddaanka feelingkaas ma lahan marka waa ila yaabaanba inaan wixii oo dhan wada siinayo dadkii kale marka waxyaalahaas intee ugula yaab badnay ayagana markii dambe u sii sharxi jiray damiirkayga ma siinayaan aniga nin adig ciyaaraha laakiin haddaan arko nin afrikaano oo haddana qalab fiican wadan xogaa si fiican xataa uma ciyaari karo marka waxaan jeclaan jirinba inaan ayaga la sheekaysto dhexgalo marar qaarkood waa soo dhuumanaa holandeeskii wixii ka soo dhuumanaa kuwii kale un sii ka tagaa marka maalmo badan iyo waayo badan waa u soo joogta ilaahay ku daysto waxaan u soo gudbaynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena sida caadada barnaamijkeena maalmaha dunida aynu jecelnahay haddii beedmo badan waxaanu kusoo qaadanaa warbixino waraysiyo kala gedisan aynu la yeelano dadka magaca iyo maamuuska iyo miisaankaba ku dhexla bulshada Soomaalida ka mid tahay bahda barnaamijkan ay sharaf u tahay inaad naga aqbashid barnaamijkeenan nagala qayb qaadatid oo waraysi inkastoo taariikhdeeda lagu soo koobi karin hal barnaamij laakiin qaybo ka mid ah aynu dadka la wadaagno aynu kaaga mahad celinno fursaddaas ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan fursad kuu siino daawadayaasha barnaamijka ku xiran iyo weliba caalamka intiisa kale daawo doontaba maxaa talo iyo fikir iyo tusaalo iyo waano iyo waayo aragnimo iyo aragti intaba aad la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba gaar ahaanna kuwa jecel inay ciyaaraan kubadda miiska oo aad magac iyo baabuus intaba ka samaysay maxamed horta marka hore waa mahadsan tahay sida sharafta leh aad isoo dhaweysay shacabkeygii Soomaaliyeed waxaan leeyahay isjeclaada ku midooba midnimada Soomaaliyeed waayo aniga maadaama aan ajaanib ku dhex jiro goortii ay dadku dunida ayna arkaan inaan isku duubanahay isjecelnahay dalkeena aan ku fikireyno mustaqbalkeena aan ku fikireyno ummad waliba wayna qiimeynaysaa laakiin markay dhexdeenu ay kala daadsannahay oo aan walba midba dhinac u socdo oo aan mar walba isdagaaleyno oo meel walba aan isku qabsanayno sumcad xumay noo tahay dhammaanteenaba marka walaalihii Soomaaliya waxaan dhihi lahayd ku dadaala qof alla qofku
oo dadaali karo hadday noqon lahayd qaab dhinaca sports fun waxbarashadii cid walba hobby uu leeyahay hobbigiisu success ha ku noqdo si beritana dadkiisa uu caawiyo marka walaalahaygii isjeclaada waa idin jeclahay dhalinyarada kubadda miiska jecelna waxaan leeyahay kubadda miisku heer waa ka gaari kartaa inkastoo adi ay kugu xiran tahay dadaal intaad dadaali kartid ku mashquul futurekaaga ha ku mashquulin qof kale ama shakhsi kale focuska saar adiga isa saar si aad horumar ku gaari lahayd intii aad awoodo waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay magan tahir bahda barnaamijka maalmaha dunida si guud iyo si gaar ahaanad baynu kugu mahad celinaynaa aan dib ugu laabtay magan tahir yuusuf waxa uu ku noolaa waddanka Netherlands in ku dhow 30 sano isla markaana uu waddanka Netherlands ku matalay ciyaaro iyo tartanno caalami ah oo waliba dhanka ciyaaraha kubadda miiska ah oo uu ka qayb galay isla markaana uu ku helay abaalmarinno caalami ah oo uu ku guuleystay waxa uu sidoo kale dhanka waxbarashada iyo waliba markay timaado dhexgalka ardayda uu kaga jira kalimaha hore isagoo bartay maadada administrationka ama xagga maamulka wuxuuna xiriir dhow la leeyahay sida qaybihii hore barnaamijka aad ku daawateen iyo waraysigaba uu xiriir dhow la leeyahay waliba mid joogta ah Soomaalida ku nool qurbaha qaasata waddanka Netherlands oo uu ka qayb galay xafladahooda iyo barnaamijyada kala gedisan ay qabtaan iyadoo taas ay u dheer tahay inuu si joogta u dhiirigeliyo dhallaanka ku nool waddanka Netherlands khaasatan markay timaado dhalinyarada iyo carruurta daneynaya in maalmaha ka mid ah ay noqdaan sidiisoo kale ama ay u ciyaaraan waddanka Netherlands ciyaarta kubadda miiska magan bahda barnaamijka maalmaha dunida anigu waa Maxamed Saciid Saxaafi iyo guud ahaan inta barnaamijka maalmaha dunida nagala shaqeysaba waxaan jecelnahay si guud iyo si gaar ahaan inaanu kaaga mahad celinno waqtiga iyo fursadda aad noogu ogolaatay in qaybo yar oo ka mid ah taariikhdaada aynu wax ka ogaano dawadaasha iyo bulshada Soomaalida inta kalena aynu la wadaagno waxaanu ku leenahay waad mahadsan tahay 100%. adiga mudan Maxamed iyo tiimkaaguba waan idin salaamay waayahay waxaynu ku soo gabagabaynaynaa intaas barnaamijkeennii iyo waraysiga aynu la yeelana magan tahir yuusuf isla markaana toddobaadkan uu marti uu ku ahaa barnaamijkeena maalmaha dunida intaanu ku kulmayno barnaamijkiisa xiga waa bahda barnaamijka maalmaha dunida oo isku duuban oo idinkaga tegay meel bad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo